magaalada balcad la yiraahdo ee ku taala koonfurta muqdisho ku taala marka laga baxo magaalada muqdisho waqooyigeeda la sii aado muqdisho marka ka baxay itijaaha jugraafiga ahaan aadid waqooyi waxay u jirtaa 29 kilomitir ama 30 kilomitir 29 kilomitir ee tiraad waa magaalada afkeeda ay joogtaa oo soo gasho almost waa soo gasho magaaladii balcad waxaa la oran jiray shan magac ay soo martay waa magaalo yar oo aad u taariikh fog taariikhdeedu ma dhawa taariikhdeedu waxay xiriir la lahayd magaalada yar waxay xiriir la lahayd magaaladii la oran jiray Serabion waa magac Soomaali horta hal la yaabin waa seero biyo iyo on oo la israaciyay bal israaci seero biyo iyo on seero waxa la yiraahdaa xuduud baa la yiraahdaa waa Soomaali baro yarow baro yaray baro gabarhay baro wiiliyow baro seero haddaad maqashid seerada waa xuduudda seerada beeraha seerada xoolaha seerada marka seero waxa la yiraahdaa xuduudii biyaha macaaneed way macnihi Serabion magaalada waxa la oran jiray muqdisho bay ahayd muqdisho ka hor ayaa la oran jiray Serabion 1313 baa la oran jiray waxay xiriir la lahayd waqooyiga iyo galbeedka Afrika ay xiriir la lahayd magaaladaas sidaas la mid ah hadaba magaalada balcadna xiriirkaas wuu jiray waqooyiga iyo galbeedka Afrika saxaraha dadka la adoonsada ee Afrikadaasi laga soo qabta baa waxa la keeni jiray laba suuq oo waaweyn oo ku kala yaala magaalada muqdisho iminka aad u garanaysaan ee bariga la oran jiray Serabion iyo magaalada la yiraahdo balcad hadaba barigaas dadka la adoonsada la keena dadkan la adoonsada barigaas la keena waxa la oran jiray magaaladii shanta kulan Soomaalidu waxay u taqaanaa geeda waaweyn ee la yiraahdo kulan shanti kulan ee ahayd shanti kulan ayadoo ayaa waxa la keeni jiray dadkaasi muqdisho laga soo kaxeeyay ayaa masana suuqan kale la keeni jiray lagu kala iibsan jiray yaa kala gadanaya yaa gadaya Soomaalidu soo ma ku jirtay dadka la gadanaya waa maya Soomaali abidkeed lama gadan abidkeedna